السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هانتي مeel kasta naga daawanaysan halkani waa midowdo aan waxaan Cabdiraxmaan waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabto meel kasta oo aad iga daawanayso. Haddii aad nala joogtay waad mahadsan tahay ee barnaamijka saaxiibada iyo Soomaaliba u sheergaray haddii aad naga cusub tahayna channelka subscribe noo saar. Wadadii boqolka baanu saaranahay na soo raab. Haddii barta Facebook nagala socotana follow na soo dheh. maalmahan waynu kala mashquulay oo casharadii taxanaha muddo 3-4 maalmood waa istaageen hawlo kale ayaanu ku mashquulay aad baan ka raali gelinaynaa laakiin casharkani mid aan joojin doono ma aha ilaa aynu najiido ka gaadhno waynu ku celcelin doonaa barnaamijyada kale iyo waraysiyo badan baynu ka sameyn doonaa barnaamij dhayal iyo laab la kac ku yimid ma ahayn sida daraadeed inta yartay hakadka raalli ka ahaada Soomaali وهجاج قيبتني وقيبتي صدق يتمناد أو كم ده عشرة تحناها دقن كسويال كالصومالية حر عيسى أو دوان هي هذا يونسكو هي دقن مدن بدوبي وقابل سن دقن مذا أي قلنا كدوتي أقوى إنه يهي نظام ضد لهم معمول كرايو صومالينا نظام الآن بأبا إيسا نظام كذينا ضد بهاي هي كل رقم ضد بها هيستا واللي حبوا خلاص أنا سوى هيستا لكن wuxuu baahan yahay bulshada Soomaaliyeed oo dhan inay ku dhaqanto wahagaag marka qaybtani waxaan kaga hadlaynaa dhagalayda ummadda ka dhaxaysa waxyaabaha ummadda ka dhaxeeya in badan baa waxaan soo celceliyay maxay tahay faa'iidooyinka xeerkan ku jira ee Soomaaliya u baahan tahay cashirkani waa cashirkii aad ku qaadan lahayd meelaha ay Soomaaliya naafada ka tahay meel dhaqankeedii ka tagtay meelaha ay u baahan tahay inay dib ugu soo noqoto ayay ka tahay qodobka koobaad jalku ha inaga dhaxeeyo waa qodob la isku raacay oo xeerka ka mid ah jalku ha inaga dhaxeeyo umada isku og oo waajidiinka wixii mara halka wixii mara yaa la kala jeclaysan ha inaga dhaxeeyo way waayana la isku dulqadin unka ama dooniga ha inaga dhaxeeyo waxa la cunaya la liqayo yaa la kala jeclaysan ay naga dhaxeeyo dhuxulnimo iyo bakhaylnimo lama rabo diinta waxa diidayba reerka ay martay ku dulqato waxa u taala 12 halaad oo ganaax ah hadduu ninka martida reerka uu martida u yahay col ku soo duulo waa uu ku diriri oo uu difaaci haddii uu ku dhintana magmalaha oo waayo waa laga martigeliyay oo waa dhoonka waxa uu dhimanayo sida daraadeed yaana loo qadi karin oo waa tii la yiri ciise marti maahe magan male taa oo ka dhigan ciise uu ismartigeliyay laakiin reer qolo kale magan oo ahi ma jirto halkani macnaheedu waxa weeye dadka waxa waajib ku ah in la ismartigeliyo waana rugna diin man رسولك عليه الصلاة والسلام حين هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قفك إذن كم ذا إيمان لي آخرنا الرمي إلهي النبي جن الرمي صلوات الله عليه والسلام برتدي سها كرامي وكا قضب كان والله سكر راعي وحاكلوا فائدة أقول لي عيسى مرتين مويه مجان ماله وحالة وذا reerka aad maganta u tahay waa reer aad xoog bidayso inuu ku difaaco oo ka difaaco qolo kale oo ka adag waxa ciise ma yaqaanaba ciise waa isku mid oo shakhsiga kale caarad ma dheero waxa laga wada yaani wala sameeyay nasab iyo langaba tahay waxa ma jiro waa ciise xeerkaas hoos jooga waa sida nidaamyada dawladdu iminka ay u jiraan qodobka labaad 90 waxaa la yiri dadka caydhooba xariga loo qaado oo waxa loo saarayaa guddi ummadda ka kooban guddida ayaa kidin waraaba ku qadinba neef ka qaada Soomaali qatar meeshu waxaa lagu yiri 90 goorta waa 90 waa hanti baa la oran karayaa ama xoolo baa la oran karayaa 90 laakiin sahayda markuu qofku socdo uu wato baa 90 loo isticmaalaa marka de dunida oo dhan baa iska safare reerka hantidiisi ayuu xeerku 90 iyo loo soo qaatay kelimadan eray bixinta 90
jiscinkaas marka waa hanti qofka caydhooba waxaa xeer oo dhaqan ah oo la isku raacsan yahay in guddi ummadda ka kooban intii la qaado xoolo la ururiyo kidin waraaba ku qadinba waxaa laga wadaa يعني ماشي هدو ورابي بعد حولك مل حول شوجان وا يعني ماشي حول شوجان بقى مل ورابا كقدين ومل متقنا أي حول شوجان تي حولا سعنيا هدي وحلا يلا هذي إن أقل مرن ملكمود محوك قاعد بالي أقل قدون تو مرن هي ملكمود صقلا تعدوا ما تشوكتوا ودلو بالغ وضع مركا sida daraadeed baa qof ma guri walba waa laga soo qaadaya kidin kaas hore baynu macnaynaa kidin waa kadin laakiin eraygan kidin ayaa af Soomaaliga ka naxwo wanaagsan sababtoo ah kidin markii rid aad u taqaano kadinna aad geela u taqaano boqolka ah waa af Soomaali sax ah laakiin kadin markaad geelina u taqaano rid laga galana u taqaano laga af Soomaali fiican yahay waa hagaag halkaasna dhibco ayaynu ku siinaynaa dhaqankii soo jireenka baa meesha yaala marka horeba log iyo lis baa la siin log iyo lis logu waxa uu ka dhigan yahay ahmi ahin amhin xagana maxaa laga yiraahdaa ahmin iyo amhin marka amhin kaasani waa igu cusub yahay laakiin ahmin baan garanayaa waa xoolihii noola dhaqmahayay ayaa markaa la siinayaa lisna waxay maalayeen macnaha irmaanka ahaa baa la siinayaa labadaas oo loo kala qaadaya xoolo irmaan iyo xoolo aan irmaan oo dhaqan ama horweyna ama de geel haday tahay horweyna arigii oo kale waa ahmiga waa arigaas aan irmaanayn ama de lab kale ama aan rimanayn ama riman ama yaryar waka ummadda dhulka wada leh baa mid iyo neef laga soo qaadi kidin daloolaba xoolaha baa ummadda caydhowday loo qaybin sidaa baa loo yidhi jidiin iyo jiscinba waxay naga dhexeeyaan waa waxay wada jir ahaan ummaddu u dhigatay wixii diidana waa dadka bax waa ummad midowday oo midaysan oo midnaba raacaysa waa inta Soomaali inaga maqan qodobka saddexaad waxaa la yidhi aan wada degno oo waxay ka dhigan tahay dhulku haynaga wada dhexeeyo ummadda xeerka dhigatay ka wada dhexeeyo ninna ma oran karo meesha baan gaar u leeyahay sidaa baa loo yidhi ciise ceel iyo caws ma kala laha maanta Soomaalidu waxay isku jilayso ee ugu badan iyo colaadaha ugu badan ee jira waa daaqsin iyo dhul dawlad goboleedyadu waxay isku laayaan waa dhul iyo degmooyin qabiiladuna waxay isku laayaan waa daaqsin iyo annaga dhulkan leh dhul cidla oo Soomaalidu aynan waxba ku beeranin waxba ka soo bixin macdan lagala bixin shidaal lagala bixin oo eber ah yaa wiilasheena nag la iskaga dhigay marka xeerka waxyaabaha ugu baahanahay ee ugu muhiimsan ayay ka mid tahay qodobka afraad waxaa la yidhi aan wada dadno oo waxay ka dhigan tahay wixii naga dhinta aan wada aasno waa xuquuq islaami ah tani yani waa fardul kafaya qof kasta waajib bay ku tahay laakiin ummadda qayb haddii ay tagto qabriga waana xuquuqda la isku leeyahay qofka inuu janaasada tagana waa sunno mu'akkad ah waana arrin la iska rabo in alla sameeyo marka xeerku sharciyada islaamka ayuu ku beesgaraysan yahay kuwii u duur xulayay dee waa kan ha arkaan qayla lagu dhifan oo wixii maqlaa waa inuu yimaado aaska ninka loo sheegay ee iman waaya waa xukuman yahay oo waa la yakayn waayo waa xaq oo danta bulshada ayaa ku jirta waa la ciqaabaya macnaha ninkaas la ganaaxaya waa la ciqaabaya qodobka shanaad waxa uu dhigayaa in aan wada daaqno biyo dad laga ceshaa iyo daaq dad loo diido midna ma jiro Soomaaliya waxa isku marisay inta waay nag iskaga dhigtay midkii dhiigeena kala baajin lahaa ilaan aqligeena kala celin waa kii dhiigeena baajin lahaa waa dhaqankeena soo yeelka ee halkan ee kitaabkeena quraanka ku salaysan waayo
biyo cirjoojiyey oo macnaha roob ilaahay cirka ka keenay biyo cirka ilaahay ka keenay ninka hor joogsada ee anaa leh yiraahda waxa xoolaha ayga aan hayna kama cabahayaan ma jiro wada jir baa loola dagaalami waayo qodobka aan wada daaqno ayuu jabiyey qodob xeerka ka mid ah qofkaas jabiyey waa loola dagaalamayaa marka si wada jir looga wada imanayaa aan wada daafacno wixii dibadda inaga yimaada waa sax waxaa marka fiiro gaar ah waxaa lagu daray waxaa la yidhi laguma darin aynu inagu wax daandaansanno sababtoo ah dhaqanka xeerka wuxuu dhigayaa aynu dariska nabad kula dhaqanno kaasaa marka hor istaagahaya marka dariska lagu duuli maayo laakiin waa la isdifaaci wixii kor ka yimaada dadka dhexdiisa wixii ka yimaadana la isku duuli maayo waa la xalin qodobka toddobaad qodobkani waxa uu dhigayaa in gabadh laga oohiyo ayaa xaaraan ah gabadh inay soo ooydaa xaaraan qolyaha maanta xuquuqul insaanka u dooda dumarka waliba u dooda yiraahda Soomaalida dhaqankeedu waa qalafsan yahay gabdhaha waa la dilaa waa lagu xadgudbaa yes waa lagu xadgudbaa waa la dilaa yaa dilaa ku xadgudba kuwa nidaamka lahayn xeerka lahayn dhaqanka lahayn meelaha aynu ka lunnay bay ka mid tahay ku soo laabo gabadh haddaad tahayna kii ku difaaci lahaa waa kan wiil haddaad tahayna hooyada iyo gabadhaada iyo walaasha kii difaaci lahaa waa kan dhaqankaaga ku soo noqo soo laabo hadday wax dhinto mas'uuliyad bay leedahay lacala hadday khalad ka yimaado xaggeeda mas'uuliyad bay leedahay mas'uulkeedii baad ku noqon oo u tagaysaa qodobka ugu dambeeya sideedaad waxaa weeye geel la qaadaya ninkii arka waa inuu rido oo ka dhiciyo sababtu waxaa weeyaan gar baa bannaan ee geel la qaaday ma bannaana ya geela waa dhicin wixii ka yimaadana waa laga garrami waa laga wada hadli horta xoolaha iyada waa dhicinaysa ku dagaalamaysa sidaa daraaddeed baa 8 qodob baa waxaa jira 8 qodob ee ummadda ka dhaxaysa weeye waa 8 qodob ee Soomaalida kale ay u dhutinayso marka sidaa daraaddeed aynu dib u soo noqono daayirta Soomaaliyeed iyo dhalinyaraduna ha fakraan oo ku baraarugaan dhaqankoodii iyo asalkoodii ahaa ummadooda dhibaatada haysta sida uga bixi lahaydna ha ka fakraan intaynu qaybta 14 ku kulmi doono waa anigu Cabdiraxmaan oo idin leeyahay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh